nimco gurigeeda inay iska sii iibisa ay rabtay gurigeeda ay suuq ku daahay almost wuxuu ku jiray 97 days ku jiray 100 casho ku dhawaaday so cilada keentay taasi ay markay soo wacdana u sharaxay ee wixii arimihii ay hagaajisay hadda gurigeedii waa pending under contract way so ciladahan see kugu dhicin ama dhibaato qaladka ayada ay sameysay ku sheegi doonaa si adigana uga badbaado walaal soo dhow magacaaga waxa la yiraahdaa Daahir halka waxa kaga hadalnaa real estate hadii aad rabto guri naas ka sii gado ama guri cusub inay iibsato insha Allah waxa kaga hadalnaa credit-kaada kor soo ugu qaadi lahayd ama wax loo yaqaan tax loopholes insha Allah na soo follow grave video noocan kala soo aragto hadii aad rabto in arrimaha guriyaha aniga ka caawiyo ama guri cusub inay iibsato insha Allah iga soo qabo website-kayga sahanrealty.com hadii aad rabto real estate investment in barato ay kamid tahay buy and hold subject to wholesaling fix and flip insha Allah iga soo qabo website-kayga sahaninvestor.com insha Allah waan in bilaabaya sa waqti badan qalminin so waxaan ku sheegay qaladaha sameysay nimco oo ah hooyo Soomaaliyeed marka koowaad horta waxay ignoreysay market-kan ku jirna hadda waqtiga ugu fiican hadii aad rabto gurigaada inaad iska sii gato so marka koowaad wax loo yaqaan waxay ignoreysay market conditionkaas oo ah in suuqa amaanta ku jirno arinta sidee tahay oo ah buyers market sales market aan ku jirnaa still waxaan ku jirnaa sales market aan ku jirnaa laakiin insha Allah buyers market wuu imaan doonaa so muhiim waaye inaad fahanto taasi so talabaad real estate agent way hayratay laakiin real estate agentigaasi ma ahayn real estate agent oo ah waxba kama sheegay aniga rookie oo ahaa una cusub oo ahaa system ma fahansaneen so dhima laha qofku waxay u baran karaa laakiin waqti way ku qaadanaysaa so qofkaas wuxuu u baahnaa qof caawiyo inuu raadiyo ama hadee taasi dhacday oo nasiib daro so real estate agentiga ay hayratay waxyaalaashii la rabay ma uu sameynin oo ah basically market plan ma lahayn okay waan ka socon doonaa so the third one ee sameysay waxay ahayd wax loo yaqaan overpricing gurigii qiimihii suuqa uu ka joogay qiimo ka badan ayaa lagu geliyay so waxa loo baahan yahay qofka marka la fadhiisto xaqiiqadana u sheegto runta u sheegto gurigaada hadii aad inta suuqa ku geliso waa lagu iibsanayaa hadii aad ka badiso sababtoo dadkan gurigaada kaliya ma arkayaan gurigaada saddex shay ayuu mari doonaa saddex shay ayaa la iibinaya saddexda lagu iibinaya marka koowaad waxay noqonaysaa dadka arkaayo oo showing the first showing second gurigan inspection maraya haddana mar labaad oo la iibinayo la mid tahay mar saddexaad appraisal la marsiinaya oo gurigan haddana oo qof third party ayaa qiimeynaya qiimaha inuu suuqa joogo so muhiim waaye mar walba oo hawlaha uu marayo gurigaada waa inaad gelisaa price dadka ay ku qancayaan oo haddana comparative ka dhigtaa guryaha dariska la mid yihiin gurigaada ay dooranayaan so hadii aad waxaan filayaa real estate agentigaada inuu ku sameeyo wax loo yaqaan CMA comparative market analysis inuu ku sameeyo oo ah soo isbarbardhigaya guryaha nooca la midka ah so taas haduu sameeyo wuu ogaan kara exactly gurigaada suuq intuu ka joogo so haddana dadka qaar waxay sameeyaan oo kale waxay underestimate gareeyaan wax loo yaqaan selling cost guriga lacagta ku kacayso guriga lacag badan ku kacaysa oo ah hadii real estate agent hayrato fee ku kacaysa waxa kale ku kacaysa gurigan waxa loo baahan yahay inaad dayactirto inta suuqa soo galin ka hor oo waxyaalayaasha basic ah inaad ka hagaajiso hadii u baahan like painting oo kale muhiim way paint garee like literally wax walba ka bedelaya everything uu bedelaya paintigaas aad paint garee sidana waa very cheap way hadii daaqadaha wax yar cilada ka jiraan waxa soo qabsan kartaa qof Mexican ah hadaa u baahan soo qaban kartaa oo ku habeyn karo oo ka hagaajina arrimaha soo dhan soo waxyaalaha ka hagaajiso gurigaasi qiimihiisa kor ku qaadaya okay tadawada arkay hadda cilada haysto xitan professional photography may hayran oo ah qof sawirada si fiican uga qaado professional may hayran mid local hayarteen aan sawirada marka hadda aan fiiriyo aan picture aan fiiriyay hatta indhahayga ma qabanayaan muhiim waaye high quality photos ina qaado muhiim waaye so aadam him taasna waa saxnay so the other thing as sameyn waxa loo yaqaan pro staging way sameyn laakiin staging qaabka uu sameyn arrangementigi qof professional si fiican ma sameeyeen sida loogu baahnaa uma sameeyeen so aniga waxaan ku daraa wax loo yaqaan virtual staging or basically HDR 3D guriga dadka iska dhax arkayaan markii aan sameeyno insha Allah hadii aan isla shaqeyno way so the other one I sameeyeen showing-kii flexible comedy oo basically qofka waxa la showing ku dooranay inuu imaan karo guriga arki karo maadaama guriga lagu nool yahay cilad say leedahay mostly qofku waxaan rabaa inuu guriga haduu rabo inuu iska sii gado in gurigaasi uu flexible noqonayo for example let's say the Monday Wednesday Friday Saturday oo ina guriga ka bixi karto at least 4 hours guriga dadka si u iibsadaan u arkaan hadaad ku nooshahayna still guriga station laguma sameyn karo dhibaatada yeelanaysa so waxa kale oo kale cilad kale dadka qaar ay sameeyaan arkay wax loo yaqaano failing to disclose property issue guriga haduu cilad uu leeyahay cilado badan uu jiro ama biyo uu soo daadiyo roof uu ligareynaya ama masquulay halaabsan wax walba warqad loo yaqaan jira disclosure form ina ku buuxiso loo baahan yahay warqadaasi hadaad buuxin waaso haduu mustaqbalka waxa macquul gala in lagu suud gareeyo ka daba imaato
so muhiim real estate agentigaasi inuu warqada ku buuxiyo warqadaasi muhiim aad muhiim u tahay hadii uu ninka warqad waxa laga saxay doona loo yaqaan arbitration oo basically ninka real estate agent markuu hawsha ay dhamaato ee saa ku dhamaanto sagina la suud gareyn karin so warqadaana ina ka soo saxda loo baahan yahay the first thing oo ay weydiinayso markii gurigaas ka sii gadayso inuu saxo ninka buyerka ah warqada arbitration agreementiga hadii uu saxo gurigaasi hadii cilad wax ka yimaado maximum waxa jaabkaada ka bixi doona waxay noqon doontaa 15000 ma noqonayso like 40 80 100000 ma noqonayso so muhiim waa warqadaas inuu إن شاء الله وحن فيها كل رئيس الأجنتي على شقين دونت ما قرنايو لكن إنه هولا كو قبض دونه. So 12 the next last one حوالي و you have to be already some of them they're not ready to move out. نقولي كبحان مرة وان. أو like قولي جوا إنا كبحدا مركز ساقولي لو جوجبيو بايتش agreement waxa ku qoran inaad markiiba ka yaacayso hadii aad maskaxyaan u diyaar garoobin wayna u diyaar garoodaa literally guriga inta la gabagabeyn ka hor wayna guriga ka bixi kartaa alaabtaada urursan kartaa everything waxa walba guriga nadiifin kartaa u nadiifisaa dadkaasi guriga ka bixi kartaa hadii aad awoodin aasa sameyn karin warqad kale another addendum ayaa ku darsanaysa adigoo codsanayo waqti bil dheeraad in laga sii kireeyo bishaasi qofkaasi ayaa waxa siinaysa lacag ah kirada qiimaha la midka qofkana isaga determine garanay adiga you don't determine or like lacagta inta ku kacayso oo kiradaasi ah laakiin waa badana just like marka qaar badana 1% siyan hadii guriga 250000 ku iibsanayso kale 2500 ka kireynayna kale oo 1 month extra ku darsanaysa hadii 2 month waynu ka yeelan ninka buyerka inuu ka yeelo like usually most of the time dadka way ka yeelan hadii oo ninka real estate agentigaada uu la heshiiyo arinta kula heshiiyo so muhiim waa arrimaha hadda ku sheegay hadii aad raacdo waxaan aaminsanahay gurigaada waa laga iibsanaya laakiin hadii aad raaci wayso gurigaada suuq ku dahaya insha Allah hadii aad rabto inaad gurigaada iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato aniga soo qowsadkayga sahanrealty.com hadii aad rabto inaad real estate investment barato ay kamid tahay subject to wholesaling fix and flip wholesale insha Allah ugu soo qowsadkayga sahaninvestor.com assalamu alaykum